الله الرحمن الرحيم. دمان halkan waxaan ka salaamayaa dhalinyarada Soomaaliland meel kasto ay ku leeyihiin gaar ahaan dhalinyarada reer Awdal waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kabacdi waxaan boqolkiiba boqol aad aan ugu faraxsanahay haddii aan ahay dhalinyarada reer Awdal sida sharafta leh ee karaamada leh ee mar waliba isku xambaarsan yihiin taasoo boqolkiiba boqol ku abuurtay inay isku mid ay noqdaan adduunka marka la eego maanta haddii run la isku sheego run ahaantii dadka boqolkiiba boqol aad iskugu kalsoon ee isku mid ah ee si sax u wada dhaqma waxaa la hayaa reer Awdal oo dadkeena takale sheegayana waxa weeyaan horta boqolkiiba boqol dhalinyarada reer Awdal waa dhalinyaro boqolkiiba boqol ku fikirta sidii hamigooda u gaari lahaayeen mar walibana waan ku fikirnaa sidii aan hamigeygan u gaari lahayn laakiin hamiga waxaan ku gaari karnaa anagoo mar waliba isku mid noqono maanta sidaan anagu isku mid aan u wadanahay inaan kasii fiicnaato weli aan isku mid noqono ayaan jecelahay takale waxa weeyaan anigu waxaan joogaa wadankan Jarmalka gaar ahaan gobolka Mooshin Bayern Munich boqolkiiba boqol waxaan arkay dhalinyaro aad u fara badan oo mar waliba u xiiso qabta u kulkulo sida wada hadli lahaayeen taasoo maalin dhow ka dhacday hoolkan dhow Mooshin gaar ahaan xaafadda Fochen taasoo aan ku wada kulanay dhalinyaro aad u fara badan boqolkiiba boqol ka wada hadlay sidii dib u habeyn loo geli lahaa gobolka Awdal oo u baahan oo mar walibana isku mid noqon lahayd dadku waxay isku mid noqdaan amba ay wax wada qabsadaan amba waxay wada samaystaan marka ay walaalo yihiin sida maanta aan walaalo u nahay si ka wanaagsan baan anigu rajadeyna aan doonayaa weli waxaan doonayaa dhalinyarada ku sugan Yurub taas kale maanta Jarmalka aniga ku filan intuu Ilaahay ragnimeysiiyay maanta cadkeena haddii aan nahay reer Awdal sida sharafta ay ku jirto waa inaan mar waliba aan ka yeelaa dalkeena iyo dadkeenaba maadaama xuquuq badan ayay nagu leeyihiin anagoo maanta Yurub joognay inaan halkan ka hadalno sharaf nooma aha anagoo maanta Yurub joognay inaan ka caytanoon hadalka orano oo eedo fidino sharaf iyo eed iyo karaamo mid toonaba inama wanaagsan takalen anigu la hadlayo khaasatan waa dhalinteeda maanta aan kasoo jeedo reer Awdal cid kama la hadlayo ma jirto sabab waxaan dareensiinayaa shuruucda bini'aadanka amba shuruucda anigu halka maanta ay taagan tahay nacam farxadeyda waxaan ku dareensiinayaa farxadooda inay aan farxadeyda ay tahay haddii anu aan farxanayo ka farxadooda ay tahay dareemayaa daaba sidii hooyaday igu farxdo oo aabahay igu farxo ayaan aniguna maanta tolkayga iyo dadkayga iyo ehligayga waan ugu faraxsanaa kale waxa weeyaan maanta boqolkiiba boqol waxaan doonayaa maanta sidaa loo sameeyahay si ka wanaagsan inaan loo siisanaado maadaama Professor Ahmed Ismail Samatar waa loo gahay markii uu wadanka ku noqday dhawaashihii sida loo soo dhaweeyay madaxweyne looma soo dhaweeyay wili gobolada Awdal sida loo soo dhaweeyay madaxweynena looma soo dhaweeyay waqti ku yimid booqashana looma soo dhaweeyay sabab waa kalgacal iyo kalsooni uu dadka ay muxubbo u gashay inaan anaguna muxubbadii aan gashano dadkeena mar waliba wax u qabano oo si sharaf loo karaamo leh waxaan dadkeena ugu yeelo waxa adiga ka galaya eegin waxa kaaga soo baxaya hadhow toole iyo ka dhilaysid sidoo hadhow toole wadanka ugu farxi doona ayaa kaaga wanaagsan adiga laakiin waxa ka galaya €100 $100 intay doonto baan noqotay adiga waa eegin laakiin waxaad eegtaa waxa hadhow toole wadankaaga aad kaga naxashiisid taaqri sababta maanta haddaad wax dirtid wax yar haddii maanta la dhisayo wax yar kaaga biira waa mid adiga ku taalo wadankaaga bad afaac ka shaqo maalmad maanta ku yaal laakiin maanta wadankaagii brother haddii aad waxba gashan weydo maaha mid ku anfacayso runaantii oo adiga wax ku yaalina maaha laakiin maanta marka adigu aad wadanka wax gashatid ayuu adigana wax ku gashanaya laakiin maanta wadanka haddaad waxba gashan weydo marna baaba yaraato wadankaaga ku gashan maayo ta kale waxa weeyaan qof maanta Yurub ka yimid oo maanta wadankii ku laabtay run ahaantii isagoo aan maal iyo hanti iyo waxba aba yaraatay maal la'aan iyo hanti la'aan way jirtaa laakiin maanta qofka bini'aadanka dadkeenu maanta qof Yurub ka noqdo aan waxba haysan way la yaabayaan taasina waa mid dhacda oo way dhacdaa waxa loo warnayaa hebel baa Yurub ka yimid waxna ma hayo waa mushaakil taasi camal dareen noqonaysa
وروحان أشرقيا داني رفع أوضل ميل كستو أي يكونوا لهين وإن أي سميان في الفرعونية كالسونية taasoo ku beerayso qofka bini'aadanka shuruucda uu leeyahay heerka uu marayaan ay noqon doonto heer boqolkiiba boqol kalsooni iyo dadkiisa iyo dalkaba noqonayso aanad ku gaarayso horumar aad u maraa ugu wanaagsan aan weligeedna horumarka maanta waddanka aad joogtid 35 sano ka hor buu dhismay waa inta anagu aan is eegayno waa inta dadkan kale eegayno waa inta qabiilada kale u fiirsanay laakiin maanta haddii aan maanta sidaa horumarkaan ugu taagannahay maanta aan ugu taagnaana beritoolana waddankeena horumar iyo dhismu gaaraya waa la ogyahay maanta Soomaali oo dhan geeska Afrika marka la isku geeyo waxaan u nahay hooyga dhan ee tacliinta dunida meel kasta ay noqoto Afrikada lagu soo hagaago annagii maanta tacliimo badankiin maanta waa wada leenahay laakiin anagu maanta nafteena wax ma qabsano run baan isku sheegaynaa laakiin maanta waa inaan nafteena wax u qabanaa aan dhulkeena iyo dadkeena waxaan ugu qabanaa sida maanta horumarka uu Professor Ahmed Ismail Samatar uu gaarsiiyay isna uu gaaray oo naftiisana uu gaaray dadkiisana uu gaaray waa inaan maanta dhulkeena aragayna aan u gaarno madaxweyne dhul ma dhiso dawladna dhul ma dhisto runaan isku sheegno ehelkooga iyo dadkooga dhulka dhista dadka iska lana way dhistaan ilmaha dhabarka kugu jirana hadhowtoona aafac u darku noqonaya laakiin haddii aad ku fikirtid dawlad baan ka maalgaalayaa dawlad baan wax ka sugayaa dawlad baan ii hirgelinaysa wax dhagax ay ku dhigaan mooyaane ballanka loo kaaga qaadayaan ma jirto dhagaxaasu kaliya oo dawladdu waa ballan ku leedahay runaan isku sheegno laakiin wax kale ay qabanayso ma jirto ta ku soo wax weeyaan ilmaha dhabarkaaga kugu jiro haddaad doonaysid waddanka in maanta aafac ay kugu gaaro waxa weeyaan adiga maanta waddankaaga ma gashan kara 500 shilin oo laana maanta haddaad ku darsatid waddankaaga wax waad ku darsatay صح بين اسمه شيء لكن أنت وطن كذا عادي حتى واحد بقول تسوي ذا واحد أبيرات قياس وطن كذا ووفر يا أبيرات اللي جت وحمش شيء ولا الله يوروب يا ولا الله أمريكا شو كتبه ملك استوى أي شوغان سيدي نهانتي اللي سكوه اللي لها أو بقول كيف بقول ولا الله إسكاشي اللي سكجد جلها وين هذا سكوه لها تكلي جمع قمح بيان قفلي وهو يوم يا باشا هو يا داري أو أبا داري أو ولا ولا شيء سيدا ما أنت ولا ليه يهو يدي ويحسوسيها وطن كان نطهر عرضي يطول الله تيويان هذا بريات كل جتيل بجروج يويان وطن كان حسوسه مرنا بقى كده يعني تكلم قال ليه وحوي يا ضلوا قاعد حتى الليل هي نمر ولا بقى قاعد فرن بات شوكتيني قاعمها يسكف يقو كرسوني نقطة ولا ياشوا سيدي ما أنت هتدلكين يهور مركينا أبوجت لسان waxbarashada iyo horumarkana wax ka yeelo sharaf wanaagsan iyo dulqaad bad u dhawrataana dulqaadkiina dhulkiina ku dhistaan uradahaaniyo takale waxa weeyaan oldo because maxaa yeelay ayst khaye naash baa dhahdaa waa wax dhici doona oo soo socda way dhacaysaana hadii maanta la isku wada duunaado sharaf iyo habnowr la siiyo ka kaayir iyo ka kaaweyn baad kala qiyaastay بحوين بهدو طبعا كذا مثال إن شاء الله شركة تنفيذ السعودية بشكل ويتنا شيء تمكي قالوا قوانين قبل كموشي قارن حفظهم فاخر فارشان أيام إن شاء الله نيسو تفيدونا أنا وحليها ولا لها مالك استبتشو ويربي أمريكا لاتين أمريكا هذا أسباب النقطة إن أي ولا له إسكاشي عن النقطة عمر ولا بس تيم سي من النقطة إسكوسي نما أنا جو أحمد ديق الياس إبراهيم وما قاعد أحمد ديق الياس ريجي وكما قاعد سورة كينج سوراج وحليه بقول كيو بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.